idaacadda warsan oo ah idaacad u taagan qancinta bulshada Soomaaliyeed isla markaana baahisa dadka codkoodu meel fog aanu gaari karin ayaa toddobaadkan wariyaal ka tirsan warsan radio ee ku sugan Shabeellaha Hoose oo aniga qayb aan ka ahaa waxaan u kurgalinay wax soo saarka gobolka Shabeellaha Hoose iyo sida beeraleyda noloshoodu ay tahay maadaama gobolku isagu qani uu ku yahay wax soo saarka dalagii beeraha noociisa kala gedisan sida qudaarta iyo badarka digirta iyo nooc walba markaasi oo beeraleyda ay ku faani karto ee Shabeellada Hoose markii aynu ka baxnay degmada Afgooye kuna wajahnay duleedka degmada beeraha ku yaala ayaa halkaas waxaan kula kulanay dad beeraley ah oo ka cabanaya dhibaatooyin kala duwan haddaba saameynta lixaadka leh ee cayayaanka iyo fatahaadda webiga ay ku sababayeen sanadkan in hoos u dhac uu ku yimaado wax soo saarkii tabaca beeraha iyaguna dhanka kale ka cabanaya dad gaar ah oo sheegeen in ay waxyaabihii agabka beeraha loogu soo dhiibay ay duudsiyeen amaba dad gaar ah ay siiyeen iyaguna ka dalbaday dadka ku shaqada leh beeraha in arrintaasi dib ugu feejignaadaan waa kuwan ayaga oo aan kula kulnay beerahooda xilli ay wadeen howl maalmeedkoodii oo lagu biifo 40 bir way koostaalkeeda markaan gooyno suudan geeyna mar waa ku saarnaa marna waa ku imanaa ay karoota ahaato ansalaata ahaato baglaha ahaato koosta ahaato barbarooni ahaato yaanya ahaato wax walba markii soo go oo shay inta am yanjiyan yowlbo afgooyan geeyna gidley baa si jirta gidley si qaadanaysa gidley xamriya si qaadanaysa xamar ka dib shilgeeyna wallahi ahaan walaalinteeda waxaan u baaqayaa mar hadan dalka aad u jeedin oo Soomaaliya in qaastan beeraleyda aad loo aabiyo waa beeraleyda mar hadan nin soo jeeda malaha waxda soo danaynayo oo beeraleyda kamid ah macna aan arko in mu jeed mar walba macna haamana laakiin dad la qoro la sheego wax aan u jeedna malaha ay waxaan leeyahay waxaan qaabilsan oo dhanka beeraha waxaan leeyahay inay aad inoo soo gaaraan ka dhax jiran ay isagna marxaati waatiin inta soo in qabada kortaan walaal intay waatiin bal gurin fadhiya wana Abdullaahi oo socda sidaahi barooda ansalaada antaabe ya bagan intide ay kanoolaade ay sidee waa insaab waa gartay halawtana in la ma sabir taageedan maana marhabadu humaadaas ay hadda habadu humaad koosta halaw ay maana wal kharaj gali wal nooy hadda humaad ma rooyto inkastoo beeraleyda gobolkan Shabeellaha Hoose ay dadaalayaan balse waxa ay u muuqdaan in ay cidna u maqnayn ceelna u qodnayn Tawakkal Cali Umar wararka radio warsan gobolka Shabeellaha Hoose.